kulan wacan daawade waa mar kale iyo channelkeena xogta daasoon waxaan halkan idinkuugu soo gudbinaynaa warbixino cajiib ah haddii aad doonayso inaad ka mid noqoto daawadayaasheena aan ku soo dhaweynaynaa fadlan waxaan kaa codsanaynaa in page-keena aad subscribe saarto maantana waxaynu ka hadli doonaa qasrigii duulaya ee Qadaafi oo dib loogu soo celiyay Tripoli warbixin guud ayaan ku dulmari doonaa balse waxaan kaa doonaynaa haddii aad inagu cusub tahay fadlan inaad subscribe inoo saarto diyaaraddu gaar u lahaa hogaamiyihii dhintay ee Liibiya Muammar al-Qadaafi ayaa waxay soo caga dhigatay magaalada caasimadda ee Tripoli kadib ku dhawaad muddo ku dhow 10 sanadood oo ay Faransiisku taalay ilaalinay dayactirba waxaana sidaas ku warmay warbaahinta Carabta wararkooda tabisay kuwa maxalliga ahba diyaaradan weyn oo ay farsameysay shirkadda Airbus tirsigeeduna uu yahay A340 ayaa soo dulmartay hawada magaalada Tripoli kahor intaanay soo caga dhigan garoonka caalamiga ee Mucaytiqiya oo u dhow magaalada caasimadda ah telefishinka arrimaha Carabta ka hadlay Al Arabiya TV ayaa arintaas waxa uu soo qaatay subaxii 21 Juun dhowr warbaahin ayaa waxay soo xigteen bayaan uu soo saaray Ra'iisul Wasaare Cabdulxamiid Dubeyba kaas oo ku sugnaa garoonka si uu arko cagadhishada diyaaradda ee habeen hore waxa uu sheegay in dayactirka diyaaradda iyo hababkii kalaba la soo dhameeyay iyadoo dawladda ku meel gaarka ay bixisay dhammaan qarashaadkii diyaaraddaas dib loogu soo celin lahaa waddanka Liibiya xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa isla fiidkii ku shaaciyay Facebook-ga Master Dubeyba ayaa sheegay in 14 diyaaradood ee haray 12 ka mid ah la qorsheeyay in dib loogu soo celiyo Liibiya halka dawladda ay ka shaqaynayso sidii dibadda loogu soo celin lahaa 2 diyaarad oo kale sida ay ku warantay warbaahinta Al Arabiya diyaaradda Qadaafi sidoo kalena loo yaqaan qasrigii duulayay waxay jawi hoose ku soo dulmartay deegaanka taariikhiga ee Tripoli halkaas oo ay ku dul wareegatay kahor intaysan soo caga dhigan isagoo wariyaasha kala hadlaya diyaaradda ayuu Master Dubeyba waxa uu yiri dadka Liibiya ayaa go'aan ka gaaraya waxa laga yeelayo diyaaraddan iyo in mas'uuliyiinta ay adeegsan karaan ama loo isticmaali karo danaha bulshada sidoo baahiyay telefishinka Al Arabiya waxa uu hoosta ka xariiqay in dalka Liibiya loogu soo celiyo diyaaraddaas caanka ahayd waa tallaabo wanaagsan oo uu qaadiyo Liibiya oo la xiriirta ammaankeeda iyo hantideedaba telefishinka ayaa sidaas sheegay diyaaraddaas nooca raaxada ah oo dadka qaar ku tilmaameen in gudaheeda ay u farsameysan tahay sida diyaaradda Airbus ee James Bond ayaa sanadihii la soo dhaafay waxay soo jiidatay indhaha warbaahinta caalamka Qadaafi oo 42 sanadood soo xukumayay Liibiya sidoo kalena lagu yaqiinay inuu goon u socod ahaa oo xafladaha caalamka ku tagi jiray qaab isaga u gaar ah ayaa waxaa lagu dilay magaaladii uu ka soo jeeday ee Sirta bishii Oktoobar 2011 xilli ay dalkaas ka socdeen dagaalo ka dhashay kacdoon dalka oo dhan ku baasan oo xukunkiisa loogu soo horjeeday oo dalkaas ka soo bilowday bishii Febraayo isla sanadkaas mas'uuliyiinta cusub ee Liibiya dawladda midnimo qaran ee uu hogaamiyo Master Dubeyba ayaa awoodda kala wareegtay dawladdii hore ee fadhigeedu ahaa magaalada Tripoli waxaana xilka loo dhaariyay bishii Maarso kadib doorashooyinkii horaantii sanadkan lagu qabtay hanaan ay maalgelisay qaramada midoobay Qadaafi waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu muddada dheeraa ee ka taliya dal Carab ama Afrikaan tani markii xukunka inqilaab military uu kaga qabsaday boqor Idris al-Sunesi sanadii 1969 Qadaafi xilligaas waxa uu ahaa 27 sano jir waxa uu ku dhashay meel u dhow magaalada Sirta sanadkii 1942 wuxuu caan ku ahaa dareeskiisa militariga iyo haweenka u ahaa ilaalada bishii Agoosto sanadii 2011 waxaa dhacay maamulkiisa kadib xoogagii la dagaalamayay inay qabsadeen caasimadda Tripoli bishii Oktoobar sanadkii 2011 waxaa si arxan daraa loogu dilay magaaladii uu ka soo jeeday ee Sirta taas oo argagax dad badan oo caalamka gelisay Qadaafi waxaana uu dhalay caruur kuwaas oo hadda ku kala nool dunida waxaana caruurtiisa ay kala ahaayeen Hanayb al-Qudayfi Said al-Arab Qadaafi Qamis Qadaafi Caasha Qadaafi Milaad Qadaafi Hanaa Qadaafi waxaa sidoo kale qayb ka ahaa Muctasim Qadaafi Saacidi Qadaafi Saif al-Islam Qadaafi
waa 49 sano jir wuxuuna si weyn u yaqaanaa luuqadda Ingiriiska. Caruurtiisa badankood waxay barteen luuqado kala duwan. Maxamed Qadaafi ayaa ka mid ah caruurtiisa. Wuxuu dhashay sanadii 1970 waxaana uu ahaa madaxweynihii guddiga Olombikada Liibiya. Labada xaas ee uu qabay, Fatxiya Khalid waa xaaska koowaad ee Qadaafi waxaana ay ahayd macallimo. Dadka qaar waxay sheegaan in iyada iyo Qadaafi uusan sukaansi dhex marin kahor guurkooda, waxaana ay u dhashay hal wiil oo ah Maxamed Qadaafi. 6 bilood kadibna waa ay kala tageen. xaaskiisa labaad Safiya Farqash waa xaaska labaad ee Qadaafi. Waxay u dhashay 7 caruur ah. Safiya iyo gabadheeda Caasha, xaaska koowaad ee Qadaafi, iyo wiilkeeda Maxamed waxay u qaxeen dhinaca Algeria sanadkii 2011 halkaas oo laga siiyay magangalyo kahor inta aysan u gudbin Cumaan. Waxaana lagu soo waramayaa in Safiya qaliin loogu sameeyay cisbitaal ku yaala Jarmalka sanadkii 2014. 10 sano ayaana ka soo wareegatay markii ay qoyskani guud ahaan ka guureen dalkaas. Sidoo kalena 40 sano ayuu aabahood ka talinaya waddanka, waxaana kaalin weyn uu ka lahaa maamulkiisa, wiilashiisa iyo qaar ka mid ah qaraabadiis. Waxaana xilligaas uu isku diyaarinaya in talada uu la wareego wiilkiisa Saif al-Islaam oo 49 sano jir ah, si weyn u yaqaana luuqadda, isagoo shahaadada ugu sareysa ee dhaqaalaha ka qaaday jaamacadda dhaqaalaha ee London. Waxaana uu ka tirsanaan jiray urur hadafkiisu ahaa inay xoojiyaan dhaqaalaha Liibiya. Wiilkaas ayuu Qadaafi u diyaariyay in uu u dhaariyo xilka kahor inta aan la toogan. Kahor inta aan la dilin. Maxkamad ku taal dalkaas ayaa sanadkii 2015 ku xukuntay dil isagoo ku maqan dalka. Maxkamadda dambiyada caalamiga ICC ayaa codsatay in loo gacan geliyo Saif al-Islaam kadib markii la sheegay inuu galay dambiyo dagaal. hagaag daawadayaal, waa nageynta warbixintii Qadaafi iyo sidoo kale diyaaradii soo caga dhigatay. warbixinadan iyo kuwa kale ayaan halkan idin kuu soo gudbinaynaa. fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe noo saar. nabadgelyo.